wararkii ugu dambeeyay ee baraha bulshada qabsaday ayaan doonaynaa in aan halkan idinku soo gudbino. wararku waxa ay sheegayaan in fanaanka caanka ah qamar suugaani oo waayihii dambaba ku sugnaa magaalada Muqdisho xabsiga loo taxaabay. maxaa keenay in xabsiga loo taxaabo, sababta loo taxaabay iyo halka loogu taxaabay ee lagu xiray ayaa ku maqli doontaan barnaamijka. intaana u guda galin ka hor fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar channelka, waana ku mahadsan tahay. haddii aan ku bilowno fanaanka caanka ah qamar suugaani oo waayihii dambeba ku sugnaa magaalada Muqdisho halkaas oo ku soo dhigay showyo kuna soo qaaday heeso fara badan. fanaankan sida diiran loogu soo dhaweeyay magaalada caasimadda ah Muqdisho oo joogay muddo kadib ayaa waxa uu damcay in uu dib ugu laabto magaalada Hargeysa. waxa uu diyaarad ka raacay magaalada Muqdisho garoonka aadan cadde asagoo kaga degay magaalada caasimadda Garowe, halkaas oo uu joogay 24 saacadood. kadibna waxa uu ka raacay gaari asagoo safar lug ah ku galay maamulka Somaliland, gaar ahaan gobolka Togdheer caasimadda Burco. daqiiqado yar kadib markii uu soo gaaray kontaroolka magaalada Burco, waxaa durbadiiba la booday ciidankii ammaanka ee loo diyaariyay in ay xabsiga liinta ku siiyaan. maamulka Somaliland ayaa xabsiga u taxaabayay dadka magaca ku leh bulshadeynta Soomaaliyeed, haddii ahayn lahayd fanaaniin ama wariyaal ama bulshada inteeda kale ah sida ganacsatada oo kaleento. waxaa hore loo xiray Yurub Genyo, Nimcaan Hilaac, Foode oo ah wariye iyo wariye Coldoon iyo kuwa kaloo fara badan. qamar suugaani sababta loo xiray ayaa waxa ay tahay aadista uu aaday magaalada Muqdisho, sababtoo ah maamulka Somaliland ma ogolo, sharci ahaanna ma yeelayaan in qof tagay koonfurta Soomaaliya laguna soo dhaweeyay soona joogay in uu dib ugu soo laabto. waana wax lagu yaqaano maamulka Somaliland. xabsiga loo taxaabay qamar suugaani waa mid aan ka gidisnayn kuwii hore. waxaan rajaynaynaa in la soo dayn doono insha Allah. wixii akhbaar ah ee ka soo kordhana barnaamijyadeena dambe ayaan ku soo qaadan doonaa. waad mahadsantihiin. fadlan haddii aad ku cusub tahay mar labaad iyo mar saddexaad subscribe saar channelka. waa mahadsan tahay.